maanta waxaan ka hadlaynaa wax intaaba ka fudud jannadana lagu galo adoon xoolana bixinin naftaadana aan bixinin haddana inaad si fudud janno ku geli karto adoon shaqo ka harin adoon hawl ka daahin adoon energy badan bixinin adoon dhaqaalo bixinin adoon culays dhib kale ku soo gaarin hal waxuun haddaad ka adkaato inaad janno gashaay hubaal bay noqon kartaa qofka ilaahay waafajiyo nabigu saxaabadu la hadlay sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu kaasuu yiri idiin sheegaa waxaad sameynaysaa oo dhan kan ugu khayr badan darajooyinka aakharana ugu sareeya rabbina ugu jecel yahay oo aadan shilin bixinaynin nafna aadan horaynin ma idiin sheegaa qofkii diyaar u ahaa jannada naf iyo maal inuu u horo haddiiba la yidhi waxaan nafna la horaynin maalna la bixinaynin jannadana ugu darajo weyn ma kuu sheegaa si degdega iyo haleelo ah bay horay si degdega ugu dhaheen haa rasuulka ilaahay noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi dikrullaahi wey ilaahay xuskiisa inaad badisaan ilaahay inaad in badan xustaan afkiinna iyo carabkiinna bartaan tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa ku celcelisaan saa darteed baa salaadii faradka ahayd ee tawxiidka kadib ugu khayr badnayd acmaasheenna markaynu dhammayno maxaynu ka dambaysiinaa ذكر الله استغفر الله استغفر الله تسبيح الاخريه التحميد الاخريه ذكر ما كدبيسنا صدرت نوح ذكر الله نبا النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله وشريعتي عمل ان سميه وان قرن الله كي ان سو imaadaba isaga ugu khayr badan baan isdhaha salaadaan ah dhageysta waxaan dhahay salaadun ku dadaal kadib baan soom baan dhageysta kana ka fiican uga guur kadib baan sadaqa dhageysta alla tana ka fiican baan iraahdaa kadib baan xaj iyo umro la dhageysan kuwii hore watana ka daran baadii cilmiga barashadiisa ayman may tana ka daran waan ku wareeray mid allaalay ee midaan ku dhago oon qabsado jannadana ku galay sheeg xuri la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah arabkaaga dhikriga ilaahay iska qalale jidkaad socotaa subhanallah iska dheh naftan waxaynu tijaabinay bayinku dib ila akhriya maskaxdani ilay hurdo maahane ma nasato naftaadana wuxun baa ku wareegi ama guriga kaliya kursi fadhi ama gidaar ku tiirsanow ama dariiqa soco marka waxaad samaysay afkana maba aamusi karaba carabkan laba xajin karaba waayii hore waxaad isirey ninka darawalkii iyo markuu gaariga wadee hadda telefoon baa yaala bal wax yar soco wax yar markaad joogto dad waxaad la hadasho weeyo kanaad soo qaadi ودري سوى دراوله ودا سارن بودري wax macno oo marka hadalka dhageysato kaga xiranna ma jireen uu aamusi laayay ma aamusi karo hadaad maanta dhan socoto mid baa heesaya mid baa wax kala qaadaya mid baa wax u akhrinaya wax baad ka fikiri wax baad ku mashquulsan tahay marka halkan ka baxdo ee guriga tagto bal inta xisaabtanto waxaad ku soo mashquulsaneed maxaa natiijo ka haysaa waxba kullu qiiqiya hawaha waxa leena barayaa marka ذكرك إلهي قري بدل كين بودا صارتها ما حكوا ديري سبحان الله هنا ترى الحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما حكوا ديري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما خرج بقى كابه ما ينرجع بقى كابه ما تشيد كيمات كداهي هذا الجاري ودو ضرر والتهاي هي هدية أحد كسارتها هيبة ذكرك إلهي بالنبي وفريد كي سمر كل شيء وكيري كلمتان خفيفتان على اللسان laba eray carabka u fudud miisaanka aakhirana culus allana jecel yahay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim inta ina tirada subhanallahi bihamdihi alazim halka markaad safka hore ka dhaqaaqdo ilaa aad kabaha xirato imisa jeer baad dhihi kartaa ilaa aad gurigaaga tagtay imisa dhihi kartaa nabigu waa kii mar kala baray la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa qad yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir boqol jeer hadaad akhrido intaada amalkaad samaysay qof ka tira badiyay maahane amal ka khayr badan maalinta qof samayn kara ba jiro laakiin maalinta dhan baa ku dhaafi hal mar adoon subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bihi waa mashquulsanta indhahaagi waa mashquul maskaxdaadi waa mashquul afkaagi waa mashquul hadayna dambi ahayn ma la yaani waad ku mashquulsanta sadarteed waxa leena barayaa la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah قرآن كنبا صلاة مركز لغا شيكيي وحال يري تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر
dikriga ilaahay baa ka sii weyn way salaadu 5 jeer bay soo noqotaa qof 5 jeer ilaahay xasuustay iyo qof maanta oo dhan rabbigii xasuusan oo dikrigiisii hayaay dee ma sinaan karaan malaa'igtu waa daalinka waa ka daalin kartaa malaa'ig baa lagu xil saaray haddaadan carabkaba dikriga ka qaadin iyana qalinka yeela joojini way dikriga ilaahay gaaraan xilliga qafladda dadku waxa kala ku mashquulaan maskaxdu ay maqan tahay xilliga fitanka ah waxay ka ajir badan yahay waqtiyada kale nabigu bisha rajab bisha shacbaan buu aad u soomi jiray waxaa leeyahay maxaad u soontaa wuxuu yidhi dadkaa halmaama inta badan rajab bay dadaalaan ramadaankana way dadaalaan shacbaan dhexday ka baxdaa bishaasaa noolaynayaa marna waa kii nabigu yihi xadiidkii muhaajir ibni qufud alcibaadatu fi lhajri ka hijratin ilay markay dagaalka iyo fitanka iyo buuqu socdee la kala qaxayo qofkii cibaadada ilaahay iyo salaada iyo dikriga xasuustaay nabi maxamed oo nool calayhi salaatu wasalaam qof hijro ugu tagay buu la mid yahay ka hijratin ilay ajirkaas leedahay markay fitanku socdaan ee dadku kala cararaya mashquulsan yahay dee waxaan baaseen ku mashquulsannahay oo kaleeto wey markay sidan tahay munaasabaadkan oo kale la joogo dikriga ilahay baan u baahanaa dikriga ilahay waxaan kusoo gabagabeynayaa oo carabkaaga aada badisood bartaay waxaa laga yaabaa mar inaadan joogin oo madaxaagu maqan yahay maskaxdaadu markay maqan tahay way haasaawaysaa carabkaaguna dikriga ilaahay inuu hayaa dhici karta xilligan dambe xanuunadii jirooyinkii sakaraadkanu waa mar walba waa sugayaan qofka oo ilaahay ku tilmaamay wajaءat sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid wax waalli camal ah weeye mowtku markuu yimaado garashadaa tagta dareenkaa tagta xakamayntaa tagta qofku ismooga wuxuu leeyahay waxaad ku dhimatun baan aakhara lagu soo saaree u dambeeya afkaaga lidaalika nabigeenu waa keena baray qofka tawxiidka carabka ha loo mariya markuu dhimanayo si isagoo tawxiid haysta loo soo saaro dikriga haddaad badiso markii aad xanuunsato isku dardarmato xaalad kadiisa kugu dhacdaay dikrigiibuu carabkaagu boobiyo isagu wuxuu yaqiinay buu ku celcelin ninkii heesta aada u qaadi jiray heesi jiray isagoo heesaya naftu ka bixi walidaalika ragga odayaasha ragga ayagoo kale wax badan baan goobjoog u soo ahayn nin qur-aan ruugaha oo markay sakaraadku qabtay qur-aankii bilaabay isma oga iyo nin maantao dhan heesi jiray wara shahaado laleeyahay soo heestii u qaadaya naftu ka baxday intaba aragna wixii aad ahaan jirtay markaad miyir qabtay aada ugu celcelin jirtay marka miyirku kaa tago isagii baad ku celcelin isagii baana lagugu soo saari oo nabigu wuxuu yubcathu lmaru calaa maa maata calayh qofku wuxuu ku dhintay baa lagu soo saarayaa laba kee kugu roon marka maantoo dhan social baasaa laga yiri iyo heese iyo inaad celceliso oo markay naftu ku qabato iyadii adoo qaadaya dhimato adoo heesaya aakhare lagu soo saaro iyo dikriga ilaahay ajirna lagaaga qoray intaad barato carabka baratood ku laylido markii xanuun kaa tira batee kadis kugu yimaado isagoo dikrigii akhrihaya aad dhimato oo adoo subxaan allah le aakhare lagu soo saaray kee ku roon nafya shaydaan baa ina duubsaneed qof kastoo mu'mina ka fiican waa garanayaa saas darteed munaasabadahan dikriga ilaahaynu badino adkaarta ilaahaynu badin xilli fitan badan baa lagu jiraa geeridii deg deg ahayd way iska badatay diyaarad baa dhacay marka baa quusay doon baa la degtay shil baa baabuur galay kansar baa ku soo gooday wadnaha istaagay maskaxdaa dhiiggii fadhiistay wax jinniya jaanun baa la sheegayaa cudurradan ba jiri jiraba innaga aan aqoon mise hadda dembigii iyo macsiyadii baa batay cudurradii baa soo batay allahu aclam kolba calaamadaha qiyaamada soo dhowaanshaheeda qaar culimmadu waa ku daraan mowdkan faj'ada ee degdega ee la wada dhimanayo waxaa igu yaabaan igu naxrin badnayd wakti igu naxrin badnaa jiddo iyo maka dhexdoodaan marayay baabuur shil galay oo baaba-ay baan soo marnay laba dhallinyaraa saaraaye mid waa dhintay midna waa sakaraad gaarigii baaba-ay muusig baa ka shidan beladii iyo baaskii intii kale burburtay meeshii muusikadii iyo samaacaddii ma burburin way ladan tahay wiilkani hees buu qaadayaa baashii u dambaysay uu la qaadayey buu la mirqaansan yahay waana sakaraad waa sakaraadayaa waa gawaaridii baa la wada istaajiyey waa la soo wada degayo waa la wada qabtay wara shahaado laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah yaad la hadli aday kuu taallaa sheekadaas annagoo taagtaagan oo uu heesaya naftu ka baxday oo marna caytamaya allah yalcan abuukada uu ku hayo bay naftu ka baxday haddii kaas waxa ku dhacay dee wax gaara ma haynine waxaanbuu ku mashquulsanaa inna waxaa la ii sheegay
Soomaaliya ninba wuxuu yidhi waxaan taagnaa ardayda la foola ka soo baxay oo jidka taagan baa gaari ku dhacay ninkii koob uu galay waa la isugu yimid ninkii waana miyir leeyahay qur-aan buuna akhrinayaa markii dambaan waraysanna waxaa la yidhi qur-aanka aad waa xifdiyo 24 saac qur-aan akhriyuhaa ninkaana qur-aanku akhriyayibuu ku nafbaxay ninkana heestuu qaadayibuu ku nafbaxay labadaa inaad kala doorataa kuu taalla laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah dikri ilaahi aynu badinno adduunka wax badan baaba soo kordhaye hadda meelaha qaarkoodna imise nin baa intay naga safartay meeshuu ka degayba gaari qarxay baa la tegay la yidhi qof walba wuxuu ilaahay koola hortagayo wuxuu ku dhintay baa aakhara lagu soo saari ilaahay khaatamada haynoo soobiyo camalkeennan iyo dikri ilaahina allah inoo fududeeyo